bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan halkani waa reediyo kulmiye qodobada warka duhur aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay sababta keentay in ciidamo fara badan ay geyso gobolka Gadow ciidamada xooga oo nolosha ku qabtay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kadib howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen gobolka Bakool odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Mudug oo ku baxay daminta xiisad ka dhalatay dad lagu dilay duleedka magaalada Gaalkacyo ciidamada Puntland oo howlgal ka dhan ah al-shabaab ka sameeyay buuraleyda Calmadow tirada macallimiinta uga cararaysa weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo sii korortay maamulka gobolka Shabeellada Hoose oo sheegay in sarkaal ka tirsan al-shabaab lagu qabtay duleedka deegaanka Buulamareer ee gobolkaasi Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika oo ka cabsi qaba in uu saameyn ku yeesho cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalka Shiinaha duqeymo ay dad ku dhinteen oo ciidamada Yuhuudda ay ka geysteen magaalada Gaza iyo Mareykanka iyo Shiinaha oo ka wada hadlay iskaashi ka dhan ah cudurka corona madkala ku celi warbal ii waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beenraad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba mar kale ismaqal wanaagsan dhagaystayaal waa Jimco 7 bisha 2 ee Febraayo sanadka 2020 Cali Ibraahim Cabdulaahi ayaa warkeena duhur soo saaray Shamis iyo anigoo ah Farxiyo Xuseen ayaana soo jeedinaya markana ku soo dhawaada dhagaystayaal warkaasi oo faahfaahsan aan ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay sababta keentay in ciidamo fara badan ay geyso gobolka Gedo waxa ay iska fogeysay eedeymaha ah in ay dowladda Soomaaliya faragelin ku hayso maamul goboleedyada dalka ka jira Axmed Maxamed Ibraahim ayaa inoo faahfaahinaya warkan maxamed cabdi xayir maare wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya mar uu maanta la hadlay TV-ga ku hadla afka dowladda ayaa sheegay inaysan jirin wax fargelin ah oo ay ku hayso dowladda maamul goboleedyada dalka ka jira guud ahaan dalkana ay maamusho dowladda sida uu hadalka u dhigay wasiir maariya ayaa shaaca ka qaaday in madaxda maamul goboleedyada hadalkoodii ah in fargelin lagu hayo qaybo ka mid ah ay tahay wax laga xishoodo maadaama dalka ay mas'uul ka tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya dastuurkana uu sidaa dhigayo dowladdan federaalka ee Soomaaliya dalkan Soomaaliya xukunta meelna faragelin kuma ah meel walba waa dalkayagi annaka xukunna annaka ugu roon annaka mas'uuliyadda u hayna national levelka ninkii halkan bari yimaada ee bedela ayaa haddana sidaa u xukumi doon oo ay ka mid noqon karto madaxweynayaasha hadda maamul goboleedyada joogta sida horeba ugu tartameen noqon kara ayaa barina bedela yacni waa wax laga xishoodo inay yiraahdaan dowladda federaalka baa faragelin ugu haysa dalkayagi weeye faragelin uguma aha waxa aray dastuurka iyo qodobadiisa dastuurka horta marka waraysa qodobadan ay cuskanayaan sida u fasirayaan maaha laakiin dastuurka qaranka wixii ku qoran iyo dalkan maamulkiisa iyo dawladnimadiisa iyo ilaalinta midnimadiisa iyo wadajirkiisa iyo sharafkiisa dawladda dhaxal mar wax laga weydiiyay wasiir maareeye ciidamada la geeyo gobolka Gadow degmooyin kamid ah ay dawladda Soomaaliya ugu gol leedahay in cunuqabateyn ay ku saarto maamulka Jubbaland ayaa ku jawaabay sida tan gobolka Gadow ciidamada tagaya ama tagay waa ciidamo militariya sharcigu sidoo qorayo difaaca dalka waxa mas'uul ka ah dawladda dhexe ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo hadda dhismay mas'uulna ka ah difaaca qaranka Soomaaliyeed wixii hadda ka dambeeyay shaqadooda ay qabsanayaan gobolada kalena way tagayaan meel walba dalka way tagayaan dalkana iyaga difaacooda mas'uulka marka anigu wax hadda duruuf gaar ah oo Gedo ka taagan ma arko ama waxaan isiraahdo waa ku saa'id oo wax qaranku uu awood aanu lahayn ayuu isticmaalay ama ciidan dhaqdhaqaaqa ciidanka militariga ee xuduudaha inuu tago gobolada tago wax ka baxsan wixii ay u tageenna waxa la weydiin karaa dabcan saraakiishooda iyo madaxda ciidamada ayaa la weydiin karaa laakiin anigu waxaan ogahay in dastuurku uu mandate ka siiyay dawladda dhexe inay ciidamada militariga iyada ay hoos yimaadaan oo difaaca qaranka ay mas'uul ka tahay madaxda maamulka Jubbaland ayaa dhawaanaan sheegay in dawladda Soomaaliya ay fargelin xoogan ku hayso maamulkaasi ayna ciidamo ku gurayso gobolka Gadow sida ay hadalka u dhigeen ayna iska caabinayaan dagaal ay sheegeen in dawladdu ay ku soo qaaday ciidamada xoogga ayaa nolosha ku qabtay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kadib howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen gobolka Bakool Cali Cilmi Salaad ayaa dhameystiraya warkan
wararka ka imaanaya degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa ku soo waramaya in ciidamada xoogga dalka ay gacanta ay ku dhigeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab. ciidamada ayaa la sheegay inay u jarmaadeen waa berigii hore ee Saaka inta u dhaxaysa deegaanada Samraan iyo Abal ee gobolka Bakool, waxayna saraakiishu ciidamadu ay sheegeen in ay ku guuleysteen in ay gacanta ku soo dhigaan dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kuwaas oo u badan caruur. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo arrimaha bulshada ee degmada Xudur Mustafa Aadan oo ka hadlay halka lagu soo bandhigay caruurta ayaa sheegay in al-shabaab ay caruur ay afduubteen ayna bareen in ay dadka gubaan sida uu hadalka u dhigay. odowkii muslimiinta oo qobadi soo sheegayaan hada walaal awlaad oo umeela masana tumanka ingiinga tumishan sana jara kasaba ka qobadi arantiyada sida oo siin baragaasan walaal kasabkaasi waa xoolana kasaba ka gaadayaan dadkana kasaba ku wadayaan dadka oo deegaanka roog walaal sheeganayaan lemankan leman odow ee lemanka al-shabaab la raw awlaadan hada siyad bilowda walaalna haysday hooda la kijeeyay siyad bilowda gobol oo dooda la leeyahay oo dhoobay ama dhoobay la ka haysday walaal baraay mal walaal baraay ولا لها براية ما يلك براية وبلغة ما يلينا با ديانا يا خيالي لكن ما لها براية أو قبالها ولا لها براية دك سيد لنجوباي لي أم بس دي مين النسكيراي أم بس دي دك اللي بعتي بس لها براية ما لنا با دك الصومالي جارهان قبل كبكول ما ينشغلنا أولادين أي هوجلسين كوبيني أولادا إيو أردا إيه هولا قبنتي هذا كلمة واجب سيد أذوكم لسوق ده إيه فدينا يا فرانا إيه دمدي حقوبته أو إيه دمدي إيمانك أو فدرال كي كوفر قلبت أو حقوبتنا ما لنا با إيه إذا كمعنانا sagaalka qof oo ciidamada xoogga dalka ee maanta ay ku soo bandhigeen degmada Xudur ee gobolka Bakool oo ay saraakiishu ay sheegeen inay ka tirsanaayeen al-shabaab ayaa waxay u badan yihiin caruur kuwaas oo la sheegay in al-shabaab ay xoog kaga wateen markii hore xarun wax lagu bariyay. odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Mudug ayaa ku baxay deminta xiisad ka dhalatay dad lagu laayay ama lagu dilay duleedka magaalada Gaalkacyo. Sharmaake Maxamed Maxamuud ayaa inoo faahfaahinaya. xaaladda ganaashaha ayaa ka jirta deegaanka Teerrege oo 14 kiiloomitir dhanka galbeed ka xiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, halkaas oo kooxaha hubeysan ay shalay ku dileen 4 nin oo deegaan ahaan ka soo jeeda koonfurta magaalada Gaalkacyo. ragga la dilay oo watay gaari qaad isla markaana deegaanka Teerrege qaad geeyay ayaa kolkii ay soo noqdeen waxaa jidka u galay dabley hubeysan oo la ii sheegay inay deegaan ahaan ka soo jeedaan degmada Galdogob, waxaana halkaasi ay ku dileen 4 nin ee gaariga wadatay, waxaana xiisad durba ka dhex bilaabatay beelaha walaalaha halkaasi wada dega. odayaasha dhaqanka oo kasoo kala jeeda Galmudug iyo Puntland ayaa saaka ku baxay deegaanka dilku ka dhacay, waxaana odayaashu ay ku howlan yihiin sidii xiisadda ay u dejin lahaayeen. dilka shalay ka dhacay deegaankaasi ayaa la ii sheegay inuu salka ku hayo aana qabiil oo u dhaxaysa beelaha halkaasi wada dega. ma ahan markii ugu horeysay oo deegaanka Teerrege dilku ka dhaco, hase ahaatee sidaan oo kale ayay dhowr jeer hore dilal qorshaysan oo u dhaxeeya beelaha walaalaha halkaasi ka dhaceen. maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa dhowr jeer hore sheegay inay ku howlan yihiin sidii ay u xakameyn lahaayeen colaadaha ku soo noqnoqda gobolka Mudug. Sharmaarke Maxamed Maxamuud, Radio Kulmi, magaalada Cadaado. ugu yaraan 804 macallimiin ah ayaa uga tagay magaalada Mandheere ee dalka Kenya nabadgelyo xumo darteed kadib markii ay ka baqeen weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, sida uu daabacay wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalkaasi. guddiga adeega macallimiinta TSC ayaa bilaabay wareejinta macallimiinta aan ka soo jeedin Mandheere kadib weerar argagixiso oo ka dhacay magaalada Gaarisa kaas oo ay ku dhinteen 3 bare. Mandheere waxay horey u haysatay 19 macallin oo aan deegaanka ahayn kuwaas oo dhigayay dugsiyada sare iyo kuwa hoose. 550 macallimiin ah ayaa ka tagay dugsiyada hoose halka 254 macallin ay ka baxeen dugsiyada sare, ayuu yiri Isaaq Jiro oo ah guddiga waxbarashada ee degmada Mandheere, isagoo raaciyay inta yar oo hartayna in ay doonayaan in ay ka baxaan ama ay Mandheere gabi ahaanba isaga tagaan. ciidamada ammaanka maamulka Puntland gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano PSF-ta ayaa waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaanada buuraleyda ah ee gobolka Sool. saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa waxay sheegeen in howlgalkooda uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay, isla markaasina ay ka fuliyeen buuraleyda deegaanada Ceelaayo iyo Warbad ee buuraha Calmadow ee gobolka Sool. ciidamada amniga Puntland ee PSF waxay ka sameeyeen howlgal amniga lagu xaqiijinayo buuraleyda deegaanada Ceelaayo iyo Warbad ee buuraha Calmadow si shacabka deegaanadaasi ay u helaan jawi nabdoon oo ay ku noolaadaan, ayaa lagu yiri war ka soo baxay taliska ciidamada PSF ee Puntland.
saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa sheegay in xubno al-shabaab ah ay ka baadigoobayaan buuraha ku yaala gobolka Sool. wararka gobolka Shabeellada Hoose markan haddii aan eegno maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan al-shabaab lagu qabtay duleedka deegaanka Buulamareer ee gobolkaasi. Cabdiwali Cali online ayaa inoo soo diray warkan. howlgalkan oo lagu sheegay inuu ahaa mid qorshaysan ayaa ciidanka dawladda waxa ay ka sameeyeen deegaanka Mariguway ee nawaaxiga Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalka ayaa ciidanka la sheegay in ay ku soo qabteen sarkaal sare oo ka tirsan xarakada al-shabaab. aadan Cumar Madoobe oo ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka sare ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xogtan la wadaagay idaacadda Kulmiye. deegaanka Buulamareer ururka 16aad howlgalo ay sameeyeen ay gacantooda ku soo dhigeen meesha wada ah oo dadka muslimiinta ah oo fadhiyay oo baadi jiray oo ay ku sheegeen wax sirna oo ay magac baadla dhaxeen halkaas gacanta looga dhigay gacanta madare baadi aad ma hadan tahay ma garanayo wax kulli ah magaciisa wada ku sugan garanayo laakiin midka sharciyaasha oo dadka Soomaaliyeed soo dhigay dadkooda inay diriyaan ayaa kamid ahaa ururada jiray dhaqaalaha ayaa ururada jiray ninka qaadimada oo sharciyaasha maya walaalo waayaha dadkii ku dhigayeen Mariguway meesha leeyahay tuulida Mariguway deegaanka Buulamareer inta u dhaxlay dadka ku dhigeen waa laga warhelay halkaas dhaqaale ku dirayaan oo dadka shacabka ay ku daadayaan ciidamada halkaas ay ku jeexeen inta kale doorba laga qaban waa wax gacanta lagu soo dheelay jiraan laakiin ninka sharciyaha oo dhaqaalaha u qaabishanayo halka jooga meesha lagu yahay gacanta laga dhigay طبعا ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgallada fuliyay beertooda 16aad ururka 16aad oo ka dhigay Buulamareer ayaa gacanta ku haya deegaanka ay kariim daawadeerina in wixii markaas shaqada muddo lagu qaaday. marka laga soo tago hadalka mas'uulkan ayaanan jirin ila kale oo madax bannaan oo arrinkaas xaqiijinaya al-shabaabna dhankooda weli kama aysan hadal. Cabdiwali Cali online shabakada wararka Kulmiye gobolka Shabeellaha Hoose. mahadsanid Cabdiwali online haatana Koonfur Afrika. Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa ka cabsi qaba inuu saameyn ku yeesho cudurka dunida looga aqoonsaday coronavirus ee ka dilaacay dalka Shiinaha. Sharmaake Nuur UK ayaa warkan Koonfur Afrika inuu ka soo diray. gobolka KwaZulu-Natal caasimadiisa Durban ayaa waxaa laga soo warinaya 2 kiis oo kale cudurka coronavirus kaasoo waaxda caafimaadka magaalada Durban ay sheegeen in labadaas qof iminka lagu dabiibayo goobo caafimaad oo qaas ah oo loo qorsheeyay. waxa uu walwal aad u weyn u soo fasaaray Soomaalida ku dhaqan dalkan Koonfur Afrika kuwaasoo ka cabsi qaba fayraskan halista badan oo iminka ku sii fidaya gobolo badan oo dalka China ka tirsan. sababtoo ah Soomaalida ayaa ah kuwa ugu badan ajaanibta ku nool dalkan Koonfur Afrika ee isaga kala goosha dalweynaha China ee dalkan Koonfur Afrika iyagoo arrimo ganacsi halkaasi ugu safra. balse Soomaalida ay iminka ka fiirsanaya u safrida dalka China. kulan casha waxa la isugu yimaadeen ganacsatada ugu tunka weyn ee Soomaalida ee ku nool dalkan Koonfur Afrika ayay kaga arinsadeen sidii ay ka yeeri lahaayeen u safrida gobolada uu iminka sida xuliga ugu sii fidayo ee dalkaas China. waxayna isku raaceen in aan la aadin dhowr gobol oo dalkaas China ka tirsan. isku soo wada duub cudurkan halista badan ayaa wuxuu dhaawac culus gaarsiiyay dhanka ganacsiga ah dalkan Koonfur Afrika kadib markii ay dalkani ka baaqsadeen dalxiisayaal fara badan oo Chinese ah oo xillidan fasaxa ee China ku imaan jiray dalkan Koonfur Afrika. Sharmaake Nuur KNN South Africa. halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa raadiyo Kulmiye Muqdisho. markana akhbaaraadkii caalamka. hogaamiyaasha Shiinaha iyo Mareykanka ayaa ka wada hadlay sida ugu fiican ee looga hortagi karo cudurka halistiisu ay saameysay wadamo badan oo kala duwan. madaxweynaha Shiinaha ayaa qadka isgaarsiinta kula hadlay dhigiisa Mareykanka Donald Trump. hogaanka sare ee Mareykanka ayaana u sheegay Shiinaha in dowladda Mareykanka iyo dadweynaheeduba ay diyaar u yihiin in ay gacan ka geystaan sidii looga guuleysan lahaa fayraskan halista ah. dhinaca kale waxaa jira khilaaf xoogan oo u dhaxeeya xukuumadaha Washington iyo Beijing kaas oo la xiriira dhanka ganacsiga.
dowladda shiinaha ayaa waxa ay wajahaysaa dhibaatooyinka ka dhashay corona kaas oo shaqaalo badan ka lumiyay dowladda shiinaha. labada hogaamiye oo qadka telefoonka ku wada hadlay maanta oo Jimco ah waxaa wadahadalkooda diiradda ay ku saareen iskaashiga iyo sidii cudurkaasi loo soo dabarjari lahaa. ugu dambeyntiina maamulka Yuhuudda ayaa duqeyn ku dilay ugu yaraan 4 qof oo Falastiiniyiin ah kadib markii ciidamada Yuhuudda ay gantaal ku garaaceen daanta galbeed ee magaalada Gaza. waxaa kaloo jira dad kale oo ku dhaawacmay weerarka Yuhuudda ay ku qaaday xaafadaha ay degan yihiin dadka rayidka ah ee reer Falastiin. maamulka Israa'iil ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay sii kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan dhulka reer Falastiin. Israa'iil ayaa aad uga walwalsan gantaalada casriga ah iyo firfircoonida dagaal ee ururka Xamaas iyo xulafadooda ay la beegsanayaan dadka reer Falastiin. guud ahaan dhageystayaal warka duhur aad kala socoteen raadiyo kulmiye waa inaga intaa.